munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay laguna sii sagootinayay samafale Axmed Sheekh Xasan Jagajago ayaa xalay oo taariikhdu ahayd 29 Oktoobar 2023 lagu qabtay magaalada Maalmo. munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Maalmo ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaan ama qaybo ka mid ah dadka degan magaalada Maalmo ee dalka Sweden oo isugu jira aqoon-yahan, xildhibaano, haween iyo waliba dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimid magaalada Maalmo qaybaheeda kala duwan. munaasabadaasi oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa looga hadlayay samafale Axmed Sheekh Xasan howlaha ballaaran ee uu ka soo qabtay magaalooyin kala duwan oo ku yaala gobolada dalka Soomaaliya. Axmed Sheekh Xasan ayaa waxa uu soo sameeyay ama uu ka sameeyay dalka Soomaaliya dhirbeeris aad u ballaaran oo ay mahadiyeen dad badan oo ku nool magaalooyinkii uu howlahaasi ka soo qabtay. munaasabadaasi oo qabanqaabadeedu ahayd mid heer sare ah loo soo agaasimay ayaa dadkii halkaasi ka qodbeeyey ama ka hadlay waxay isku raaceen ama ay sheegeen in loo baahan yahay hawsha uu hayo Axmed Sheekh Xasan ee ku aadan in la dhireeyo ama geedo lagu abuuro qaybo kala duwan ee ka tirsan dalka Soomaaliya. arrintaasi oo ay bogaadiyeen. munaasabadaasi sidoo kale waxaa ka hadlay xildhibaan Maxamed Yaasiin. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay aqoon-yahan Xasan Cali Sow iyo weliba Cabdiqaadir Cali Afbuur. dhinaca kale waxaa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo xisbiga Milyo Baartiga ay hadiyado ku guddoonsiiyeen Axmed Sheekh Xasan. saa hore u sheegay hadiyad yar oo xisbiga aan ka soo qaaday hadda hore qabankan horta waa hadiyad yar oo safarka ku soo cuni kartid. kan waa qalab yar wax lagu beeraha lagu isticmaalo oo kala duwan yar xaggan waxaan hayaa seeds oo mirooyin kala duwan oo khudaar iyo ubaxyo kala duwan oo dalka lagu abuuri karo iyo laba shaati kala duwan mid oo xisbiga calaamadiisii ku sugan tahay midkaan kalena waxa weeye xisbi ah oo maartay cimilada isbedelkeeda ka hortaga shaati asaga laftigiisa marka labada shaati iyo hawshan insha Allah oo kula wadaynaa xisbi ahaan aan guddoonsiinayno saaxiibkeen ama walaalkeen Axmed Sheekh Xasan Jagajago waa hadiyad uu ku mutay halkaas waxaa saaran mas'uulkiisa waa hadiyad muujinaysa shaqada adag ee bulshada Soomaaliyeed u hayo gaar ahaan gobolada dhexe marka aad ugu mahadsantahay. المقام
dhir baan bilaabay dhir baan soo qaaday waxaan ku beerbeenay saldhigga booliiska madaxtooyada meesha ah oo ay degan yihiin qolada xamay xeeb oy waxaan dhisay aalga yar oo qurux badan oo buluug ayaa arkay qashinka kuma gubo wadooyinka dhaadheer oo laamiga ah ayaan ka badin waayay ilaa lacagaan ku qaado gaariga ku qaado malihii waynan gubay habeenkii ciyaalka ayla gubay ciyaalka yararka mugta waa energy beran adigu bacda sida ka bacdi shaqadaasi waa ku dalacay si u waday geedaan ku bilaabay geedihii guri gabar baa maalin waxay ugu casuuntay waxaa taqaana fartuune falaad la yidhaahdo guri ay leedahay fartuun raalli ahaada fartuun iska magaalana haddaan soo qaatay ciyaalkeedi magaalada wey fartuun iyo walaasheedii raalli ahaada walaalahii guddi waa ii mahad celinaya waa simantihiin marka waxaa jiray waxaan bilownay inaan gabadhaasi casuuntay guri weyn baa geeda leh geeda waxay keentay gaalkacyo oo geedahan maxay yihiin waa la beeri karaa macnaha geeda laga beeri karaa cadaadana 40 degree bay maraysaa geed male ka hor walaalayaal waxa idin sheegaya ninka Cabdiqaadir yana maarteen Cabdiqaadir cadaab buura la yiraahdaa baabiis noo yimid anu ciyaal baan nin weynana magaalada wax ka noqday gudoomiye degmo markuu noo yimid odagii wuxuu bilaabay konton geedo wadada safan hadda waa lagu sheekaystaa geedii cadaab buur Cabdiqaadir abiis wey geedii cadaab buur beeray waa ninkii labaad noqday anigu magaaladaas hal 100,000 oo geedan geli 100,000 imagine 10 sanadood oo geed baan geliyay waxaan ka helay aan idin sheegayaa horta ninkii caay way amaaneen waagi dambe 10 sano ka bacdi war nin fiican buu ahaa ninkii qashinka naga qaadaa hadda qashinkii dahab cadaado kambariyana soo jeestay magaalada muraayad magaaladii rinji buluugaha marinay yani waxaan ka bilownaa idin sheegayaa geedihii markaa halkaas bay gaareen dalkii dhan gaarsiiyey macaamiiga mashruuc maanta geed beer la yiraahan sameeyey ilaahay way guuleeyey hadda dhusum reeb baan ku wadnaa cabadu waqaan ku wadnaa balan geynaa hobyaan geynaa gaalkacyo iyadu waa runta idin sheegayaa Soomaaliya meesha ugu geeda beerista badan leh waa boosaaso maqasheen daradan haysta waxa weeye magaalooyinka webigu marayay beledweyne oo kale geeda male geedihii waagiya ku yaala waxa degan 1 milyan bar kismaayo geed laba beero geedaha waa la jaraa wallahi waa meeshii day ilbaxa dadkii ahaayo webiyada deganaa muqdisho arkaysan geeda laguma beero bilada waa la iska dhisaa dabqa waa la dhisaa dawladdii hore waxay ka tagtay ayaa la wadaa marka way xasuusinayaa afgooy soo magaalo geedeed maaha geedayga afgooyan ka soo qaadaa dadka waxa dhib ku ah wax beeristaba iyo wax taagistaba beerihii waaba garan kartaa amni daraaba jirta dhibaata beerihii ka jirta marka walaalayaal shaqadaasi waa lagu guuleystay ilaa 100,000 oo geedaan wadaa haddana waa wadnaa waxaan wadnaa beerihii baan sameynay dadkii waa barnay ilaa iyo wadada gaalkacyo u dhaxaysa meesha galmudug oo dhan geedaan ku wadnaa meel kasta waa geynaa dadka hore waagan waxay dhihi jireen haddaan barkada biyaha aan geed gashanno aan geed abuurno geedkaasi barkada biyaha naga xaraar buu noqonayaa barkadihii aan u gelinay ninka soo riimiyay wuxuu leeyahay geedii beer intuu yimaado subaxii geedkaasiya wuxuu leeyahay geedkaasaan beerto magacayga in lagu sheega rabaa saan meeshaas barrinkaas loo degin hadda marka waxay noqotay geedihii baa balalaaya Soomaalidu hadda way ilbaxday aad bay u dadaalayaan meelo badan oo saad u maleynaysan ma ahan adiga waxaan ka codsanayaa walaalayaal dadka markaad gobolka soo joogtaanba inaad geedaha dadka free tiraadaan geed guriga hooyo geli guriga aabba geed geli aniga guriga geed geli dadka masaakiinta masaajidada oo kale magaaladan hadda joognayeen baa laba wiil 1,000 karoon ay dhiibeen oo reebaxda ah laba wiil oo meeshan ka shaqeysa maalidood 1,000 karoon ay dhiibeen waxay 1,000 karoon waa intee adeer intaasoo geed waxaan waa dhakhtarkii baxda deganaa baxda waa magaalo hadda korayso aad u cusub magaalada degan hadda inuu joogaan oo maleynaya 1,000 karoon ay dhiibeen dhakhtarkii baan waa habeenimo waa kacshay geed ma baahanta ha laba wiil waxay tiri 60 geed geli haye 500 ay dhiibeen waxaan waa xafiiskii maanta geed beer bari galab u saaray 60 geed dhakhtarka marka wiilasha aan la hadal siiyaan rabaa wiilashu marka way shaqeeyaan ma garatay aad bay u mahadsan yihiin walaalayaal dalka wuxuu u baahan yahay wixii aan qaban karno aan qabanno amniga aan ka shaqeyno horumarka aan ka shaqeyno hal abuur waa la sameyn karaa wax waa la sameyn karaa waxaan kaloo idin sheegayaa xaalufka wadaran dhulkii eber baa laga dhigay reebaadiyaha waa taqaanaan abaaraa jiri wadankan dabaylaha dhaca roobab baa yimaada waa martaan geeda
meel kasta geed baa yaalla waa jarayaan way shidanayaan way goynayaan noloshii oo dhanna geed bay soo gashay waa garan kartaan marka maxaad moodaan annagiiba hadda nahay dadkii baa la leynayaa geed iyo axsaan u samaynaya